arrinta gobolka Gedo muhiim bay noo tahay. Gedo waa Jubbaland, ma doonayno inaan qofna lagu xadgudbo siyaasiyan iyo dhaqan iyo shacab midna qofnaba in xadgudub lagu sameeyo. waxaan rajaynaynaa wixii tagay wuu tagay. waxyaalo badan oo siyaasaddu ay keento laga shaqeynayay baa jira. maamul horena kuma noqonayo, ku dambana kuma noqonayo. waxaan rabaa dadka gobolka Gedo waa dad walaalo ah, reer Jubbaland, mas'uuliyad naga saaran tahay. dibdhac badan ay asbaab siyaasadeed u keentay. intaasi inay kaga filaato wixii dhibaato ay soo gaari lahayd. waxaan rabnaa dadka in la isu wada geeyo, heshiisiin loo sameeyo, qofka dhaqanka lagu tixgeliyo, ka maamulka maamul lagu tixgeliyo, odayga odaynimadiisa lagu tixgeliyo, culimada lagu tixgeliyo, kuwa maanta joogay maamulada. maamul gobol baan magacawnay. waxaan rabnaa in la isugu yidhaahdo, mas'uuliyiintu ay wada tagaan, dadka qof kastoo qof wax ka tabanaya iyo wixii xal ee siyaasad u baahan kulligood in la xalliyo. waxaan rabnaa kuwa maamulada ee maanta gobolka joogay qof walba isaga oo jooga mas'uuliyaddeeda inuu qaato. qof annagu maanta aan xumaan u qabnaana ma jiro, qof aan wax ka sheegaynaana ma jiro, qof jawaabka noogu jiroon leenahay kanaan kan ku bedelanaynaana ma jire. waxaan rabnaa dadku inay wada noolaadaan, walaalo ahaadaan, mas'uuliyadda qof walba wuu iman wuuna ka tegayaa. laakiin kuwa jooga maanta cudurka kama qabno, cuqdadna kama qabno, mas'uuliyaddaa tegi doonta, anaa tegaya, wasiirraa tegaya, madaxweyne ku-xigeen baa tegaya, xildhibaanaha tegaya. waxaan rabnaa dadkaas wax kasta oo la isugu soo jiidi karo oo gobolkaasi takhallufka ku dhacay, caqabadaha ku yimid, waxuna mudnayn inuu uga hadho wax badanoo loo qaban lahaa inay meesha ka baxdo. aan una gudbinaya in la iscafiyo. waan soo dhaweynayaa inaan qofna wax kale loo raaci karayn. waan soo dhaweynayaa qof walba waxa uu mudan yahay inuu la kulmi doono. inta hadda maamuladaana waan u sheegayaa maamulkooda ay haynayaan. wixii laga saxayaa laga saxayaa, wixii sharcigu uu qof walba u ogol yahayna uu qaadanayaa. laakiin qof dan laga leeyahay ama cid dan gaara looga jeedo ama dad shabaabka lagu wato ama dad jarmal looga keeni midna ma jiro. laakiin dadku waa inay isdhexgeliyaan, isxaq dhowraan, gartaan inuuna sidaas deegaankuna ku jiri karaynin, si aan munaasab ahayna duruuftoodii iyo xaaladooda ayna marba bannaan u holi karayn. aan iscafino. wax badan bay maanta haddii niyaddeenna iyo quluubteennu ay isu furan tahay oo dadku tasaamux uu jiro oo dadku ayna wax qashasha ay isugu haynin qalbiga, wax badan baa u qabsoomaya. war dadka risaalada wanaagsan gaadhsiiya, dadka iscafiska gaadhsiiya. qof walba qofka kale kaa baxay ama walaalkaa ka hor yimaado cafis iyo ula imow sidii la isu cafi lahaa, sidii loo wada noolaan lahaa. wanaaggu wuxuu yahay qof waliba qofka kale wixii macruuf ee uu fari kara ha faro. laakiin waxyaalaha cunfiga ama dhalin kara in wax lagu sii kala fogaado ha la iska ilaaliyo. ilaahayna ha laga cabsado. aan iscafino. waddankan aan joogno iyo xaaladuu ku jiro iyo dhibaatada mar walba ina haysata oo aynu ka lug bixi la'aan hayna waa inaad ogaataan fa bimaa kasabat aydiina. waxaan inagu la nimid baa cuquubada inoo keenaysa oo dhibka inoo keenaysa oo innagaan isu niyad fiicnayn oo innagaa wax kale ka shaqaynayna. innagu niyaddeenna aan hagaajino. هذا بالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.